xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka la doortay golaha shacabka iyo aqalka sare laba deegaan doorashada lagu kala qabtay oo xildhibaanada ruuxooda isbarasho u caawa in meesha lagu kulmo oo la is arko la isbarto marka soo dhawaada ayaan leeyahay xildhibaanada labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare barasho wanaagsan cashada madaxweynaha waa ka mahad celinaynaa madaxweynuhuna waa mahadsan yahay sanadkii tagay bishii Maars inay ahayd aan u malaynaa ayaan madaxweynaha maraan kula kulanay meeshaan Busmareeb anagoo guruba mucaarad aan u sheegno waxaan diray meeshaan Galmudug meel dhib badan waaye ninaan ugu maamaahay oo reer mudug ahaayo bisad ay lu ka qaniintay marka bisadii markii ay qaniintay ayaa ilaan reer mudug bisadaa ma yaqaanaane aad u xanuunsaday marka maalinkii la qaaday istaala la geeyay marka wuxuu is yiri malaha haddii aad dhahdid bisada ay qaniintay ama lagula yaabaa marka wuxuu yiri libaaxa ay qaniin meeshii markii uu tagay oo dhakhtarkii uu sheegay marka waxaa la yiri wuxuu is yiri midna moogtahay waxaa jira wax dadku iska aaminsan yihiin oo wax aadan qabin haddaad sheegto inaadan ku caafimaadin aaba dhici karta marka wuxuu is yiri haddii daawadii bisada lagu siiyo waxa ku qaninaan libaax ay ahaayeen ama bugso weyda markaas wuxuu yiri dhakhtarow midda libaaxana ku dar bah habar dugaag isku yihiin ana aqaane marka uu sheegay waxaan ku yiri madaxweyne dadkan reer mudugga meeshaan ka imaanaya kala duwan ee afkaaraha kala gedisan qabo inaad daawadaas isku dartay u baahan yihiin oo tii bisada iyo tii libaaxa la isku daray inaad ka warqabtaa laga raba madaxweynuhu marka uu ku maasan yahay dad tiro badan oo kala nooc ah oo bisadii jiira inuu jeebka isku keen waa ku maasan yahay madaxweynuhu adinkan waxa la idinka rabaa deegaan dhib badan oo dhibkiisa oo soo yareena la idinka doortay dadka ka soo jeedo siyaasiyiintan ay aad u tiro badan yihiin marka doorashadu xilligan oo kale ay dhamaatana waxyaabo badan oo deegaanka iyo dadka ku soo laabanaya jira xildhibaanada marka waxa la idinka rabaa in marka ay timaado arrinta Galmudug waxaa la rabaa kala qaybsanaan siyaasadeed iyo xisbiye siyaasadeed aan ugu kala jirin danta Galmudug loo midaysnaado oo loo wada difaaco oo meesha duruuf ka timaado loo wada gurmado oo xilligii maamulka meesha ka jiray madaxdu ay yiraahdaan waxaan u baahanahay xildhibaanadu inay nala qabtaan ama waxaan Galmudug u baahan tahay federaalka in laga soo qabto in qolo waliba meesha uga aadanta uga aado dardaaran kulay wad ka dhantiin oo de waxa duruufaha deegaankan ka jirana wad ogtiin midda Soomaaliya ku xirna waa ogtiin madaxweynuhu insha Allah isaga la dardaarmi doona marka soo dhawaada madaxweyne soo dhawow xildhibaanadii meeshaan laga doortay Galmudug waa kuwaana wixii aad noo sheegaysa caaway dad leedahay meeshaasaan cid u tilmaamay brinkaas lagu furay iyo dad leedahay wixii ana rabay inaan isku qaboojiyo inta ayaantaan maamul isku qaboojin hayaa jire inta albaabka furay kaliya hal midaan ku darsanaa anuu mucaaradan iska ahay reer mudug aad ka hor waxaa la yiri oo soo raacaya la yiri baabuur caasi xamarna marka la tago taqaaniin oo deegaanada busteejista marka la maraa waa la sheegaa waxaa la yiraahdaa meel hebel yaa dega xafid hebel baskii marka soo socdo wuxuu yiri yaa degaya qabuuraha barakaad hayna degtaa la yiri marka ninku cusubna magaalada waa habar markii la sii socdo dana wuxuu yiri qabuuraha Salaxudiin ninkii reer mudug wuxuu sii baabuurka bilaa aqiro baabuurka iska tuuro wuxuu gaariga aqiro socdaa laga dejiyay kaliya waan ka hadsaynaa madaxweynuhu bas aqiro socdo bisteejin zinaada lagu dejino aad iyo aad waa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh